hore ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala mar labaadna waxaan u mahad celinaynaa balwanta garxajis oo runtii nagu soo martay qaaday shirkana aad iyo aadka u qiimaha badan oo aad moodo runtii inaanu ahayn shir ay beelo qabsatee shir dawlad qabato u egyahay oo aad iyo aad u baaxad weyn oo hawl badan ku baxday aad baan idigu mahad celinaynaa qodobada meesha ka soo baxay ama aan noo akhrideen haddaydan qodobada sheegi lahayn waxaan oran lahayn shirkanu kama duwana shirarkii hore la qabsan jiray laakiin ilaahay waan ugu mahadnaqaynaa runtii wixii qalbiga ee ku jiray ee xagaya baad ka hadasheen oo aad iyo aad noo qanciyey oo aan idigu raacsannahay oo ku faraxsannahay waana idigu hambalyeelaynaa runtii kollay meel rag isugu yimid waxay soomaalidu tiraahdaa maan rag waa mudyaafkii weeyaanoo waa isqabqabsanayaan taasina curshi ma laha laakiin xalka aad ku dhammaysan baan aad iyo aad ugu faraxsannahay ilaahayna waxaan idaga baryaynaa ilaahaynu quluubtiina isku soo jeediyo xumaantana idaga saaro dhibka meesha lagu hayana ilaahay subxaanahu wa tacaala idaga dulqaado ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa asagaa qaadire inaad sidaa shirkaad isku waafaqdeen Soomaaliland oo dhan aad u gurmataan oo iyadana insha Allahu tacaala beel kasta waa dhibaataysan tahay ilaahay iyadana subxaanahu wa tacaala nasra idaga dhigo kollay anu waxaan rabaa saddex qodob insha Allahu tacaala inaan u guda galo qodobka koobaad intaanan guda galin meelaha waxaan ka maqlayay oo odayaashii kacay raggu sheegayeen beesh hablaha ugu soo horeysay anagu waxaanu islahayn ciddii ugu soo horeysay ergada ayaad ahaydeen ereygaana markii lagu celcelinayo xoogayo iyo guddoomiyuhu muu caddayno muu oran beeshaasay ahaydeen wuu iska aamuseen saluug baanan u aragnay taana waxaanu jecelnahay inaan caddayno annagaa ugu soo horeyna wax ka soo qayb gala magaranaysa shirkan waayo dee haddii lagu sheegana waa la iska aamusaabaale haddii lagu sheegay waa la sheegaaye dee anaa markaa waana wax khasab bay noqotay inaan ka dilaacina warka intaa manaan ka tago waxaan rabaa kollay waxaan u malaynayaa mala wax xukuma soo hadal qaadab ninkii odayga ugu dambeeyey baa jire anugu kelmad baan ka oranayaa kelmadaan ka oranayaana waxa weeye kollay shirka in la shiro waxaa kaliftay xukuumadda mid kalena wuu dhici doonaa iyadaa kalifi doontaa xaqiiqaduna caynkaa weeye cadaalad darrada iyo eexda iyo qaraabakiilka ka taagan xukuumadda talada haysa ayaa keentay inay beelu isku noqdaan aayooda ka tashadaan waxayna u eg tahay Soomaaliland maanta ama xukuumadda u eg tahay sidii ninkii odayga ahaa maamaa yar baa jirto waxa nin odayaa dhintay dabeeta wuxuu ka dhintay laba wiil wuxuu uga dhintayna saaciyo wuxuu noqday buste dabeeta kii wanaaba ku yiri aabba wuu dhintay wuxuu ku dardaarmay bustahaas iyo saca bustahana habeenkii aniga iska leh maalintiina adiga leh sacana inta hore adiga leh inta dambana aniga leh yarkii dhaxaya gaajaas ku darsantay wuu khiyaameeyay dabadeeto nin baa soo maray xigmado la wax garanaya wuxuu ku yiri waar bustaha markaad maalintii qoob uu yiri sacana geesaa ka qara markuu lisayo bustii buu qoyay ninkii odaga ahaa dabadeeto bustii damihu ma kara habeennimadii baalkii qoyo barka maxaa dhacay yurda waa maalinteeda maamulayay buu maxaa ka gala adiga saaxiibu dabcayno maalo gaashu ka qaraaca haratibu ku dhuftaa wuxuu waa sidee magasuudaadu maalaan waan qaraacanayaa ila wadi caygii waxa leeyahay wallahi cid geesta qaraacda la waayay ma xukuumadda talada haysa wallahi la waayay maayo oo billahi la waayay maaye haddii aan caanaha la wada cabino gaajada laga wada bixino go'a busta aan la wada huwanin oo xal la iskugu noqonin annaguna idin ilaalin mayno idinkuna iska dhaqi maysaan cabi maysaan
xaqiiqaduna waa nooca weeye waanan ku raacsanahay shirkan waxa ka soo baxay waxaan ugu adeefeenayaa kelmad aan ku soo khulaaseenayo hadalkayga kelmaddaas waxa weeye annaga kolay waxaad nagu taqaanaan beelaha gabooye wuu fara badan yahay sidaad idinkuba u fara badantii baan u fara badanna madhibaan baan nahay muusaan nahay tumaal baan nahay annaas baan nahay waa mayibir baa hadsaal kolba u taqaanaan hawlaa jira wadheeraa jira waxaa laga yaabaa interesti wax la yidhahdaan jirin aad nagu barbarataan laakiin waa iska iman doontaa oo annagu waa idinkala naqaanaa oo waxaa laga yaabaa xataa reer in uga abtirino la maxaa yeelay dee xoogaa baa idigu jira laakiin annaga waxaa laga yaabaa faa'iido badan baa jirin oo saa darteed baana loo baran laakiin iminkay jiri doontaa insha allah rajadeedu waxay ku ekeyd aan ku doonaynay xisbiga waddan insha allah hadduu soo bixi lahaa si fiican baa noola baran lahaa laakiin waa la dhacay xisbigii markaa waxaan sheegayaa anigu waxaan ka soo jeedaa beesha madhibaan 6 gobolba waa degnaa waxaan nahay beesha quree runtii xukuumadda talada haysa xuquuqdeedu ku weyday wadani baa taageerteen waxaan nahay beesha aan hal qof uga shaqaynin xukuumadda hal qof xataa barwale kuma lihin magaalo kastana waa deganay laascaanood baa deganay ceerigaa baa deganay boorama baan deganay sudaankii boorama waka waa sudaan baraan dacar barbara meel walba waa deganahay wax alaaliya waxaan ku haynaana ma jirto waxaan ku weyna xuquuqdayadii iyo xaqaan ku lahayn dalka ilaa ummadii kale mucaaradka wax walba waa helayaane way nagala masuugeen waxay yiraahdeen waxaad naga raacdeen halkaas taana waa in la ogaadaa lagu baraarugsanaada oo aad ugu baraarugsanaatan waxaan ku soo khulaasanaya warkay ku soo dhameystiraya shirkan waxaan ka baraya ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ka dhigo shir ay Soomaaliland ku wada badbaado midnimada iyo wada jirka wax walba inuu ugu jiraan cidii khaldan farta in lagu fiiqa waa mid waajib oo ina saaran weeye waayo haddaan iska qaban ninka khaldan nabigeenu wuxuu calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka in kaana zaaliman aw madluuma waan garanay baa la yiri marka uu dulman yahay waa u gargaarayna laakiin markuu zaalimka yahay maxaan qabanaa gacanta la qabanayaa buu war jeegaanta waan gacanta qabanaa waa inaan gacanta qabanaa oo la isku soo miidaanka oo waxa lagu leeyahay 6 mashruuc waa la bixiyo 58 bay qaateen ma ilaahay ma wax lagu noolaan karaa macquul maaha waa inay noqoto wax Soomaaliland wada leeyeen loo tartamo oo cid xaq u qaato xukuumaduna waa nooca weeye marka insha Allah ta'ala idinku nagu hogaamiya kale libax baa tiimbaaleeyay anaguna waa idigu soconaa insha Allah ta'ala xaqooda way isku tagay doonto billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh